waxaa maalintii labaad si taxanaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya dood adag uga leeyihiin go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ka gaadhay shirkadda DP World. wariyahana Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warbixinta warkan Muqdisho inooga soo diray. waxay ahayd dood adag oo xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka ay ku kala aragti duwanaadeen heshiiska ama sharciga ay soo gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka waxaana hadaladooda laga dheehan karay sida ay qaarkood u taageersan yihiin in si degdeg ah heshiiskaasi loo meelmariyo ama sharcigaasi loo meelmariyo halka kuwa kalena ay ka soo horjeedeen in isla markaana ay soo jeediyeen in dib loo eego oo guddi loo xil saaro arrintan kala aragti duwanaanshaha xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka waxay horseeday buuq badan oo soo kala dhex galay ugu dambeyntii natiijada go'aanka laga qaadan lahaa waa kuwan qaar ka mid ah senatarada aqalka sare oo arrimaha ka hadlaya waxa kali oo aniga aan halkaa hadda aan ka sheegay waxa weeye gudoomiye laba mulaaxadood ama laba arrimood oo aan sharcigan ku jirin oo laga dhawaajiyay baan ku talinayaa in labada arrimood xog loo raadiyo kadibna golaha la keeno si loo ansixiyo guddigana iskalena loo dhiibo sidii procedure-ku ahaa si ay uga soo baaraan degaan lana waafajiyo labada arrimood aan ka hadlay waa arrinta koowaad sharcigan laguma soo qorin arrintii ku saabsaneed muxuu ahaa sahmiga dowladda Itoobiya loo qoray lagama soo hadlin bataatan kuma qorna meesha waana arrin culeyskeeda iyo miisaankeeda leh lagama soo hadlin halkana waa laga dhawaajiyay waxa loo baahan yahay arrinta xogteedii in la helo taasna laga helay wasaaradda arrimaha dibadda wasiirkeedii sidii loo soo jeediyay iyo xukuumaddii ra'iisul wasaaruhu uu madaxda ka ah inta labaad baarlamaanka markuu go'aamiyay ee uu ku dhawaaqay موقفك حكومة ما سو عدين ما عدا موقفك محوي هاي تاجر ميا مديد ما أيضا نفط هذا ماشي كم عدا وحال الربا موقفك حكومة إنه عدا هذا وحي أنا قيلت هاي إن يشوفتوا هرت دق فربضن وكم موقضة وأنا ذن ليروسو قدبي أنا جو عندي دنين إلا الدفاع عدل كصوماليات badda Soomaaliyeed iyo hawada Soomaaliyeed mar walbana ay tahay taan u taaganna inaan difaacno dalkeena iyo dadkeena oo aan ku metelo meeshaan maanta fadhino waxaanse aniga ay iiga muuqataa in degdeg farabadan ku jiro sidoo imika sheegayay walaalkay senator mashruuc habeenkii in wax inta la qoro isla maalintii la asixiyo waxay ka turjumaysaa inay jirto degdeg farabadan arrintan maanta in horta la arrintii qarannimada Soomaaliyeed waa arrin aad iyo aad u ah arrin xasaasi ah waa arrin laynagu dhafar taabanayo maaha arrin fudud oo xasaasiyad iyo qof jeclaysi maxay hayto lagu fuliyo golaha shacabka waa mahadsan yihiin waxaan u aaminsanahay hay jibadii wadanimo baqaaday oo wax badan kama fiirsan aad bay u mahadsan yihiin laakiin anaga maadaama aan ahay golihii aqalka sare ummadda Soomaaliyeedna wax badan inaga rajaynayso horta mar walba ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in aanan qarannimada Soomaaliyeed waxba ku iibsanayn in aanan wadan Soomaaliya leedahayna halka ka noqday dawlad kale ku sii boodgaraynayn laakiin waxaan rabnaa inaan si degan uga fiirsano go'aanada aan gaarayno ee soo saarayno waxa la yaab noqotay oo hadda qodobada ku jira meesha sidoo sheegay walaalkay senator mashruuc dawladda Itoobiya oo 19 ku leh ilaa hadda cid ka hadashay male dawladdu kama hadlin golaheena shacabkana kama soo hadlin way dawladda Itoobiya loo diiday xaaladdu waxa weeyaan aabow ka yariga qabo ka weyn ugu soo daa kolkaynu dib eegno arrinta Dubai Port World heshiiska waxay gashay ka hor intii aynaan maxaan ku yiraahdaa madaxweynaha dalka aynaan dooranin ayaama ka hor bay ahayd waxa laga joogaa sanad iyo zaay inta way soo socotay waxa ku xigay heshiiskii Boosaaso waxa nasiib daraa xukuumadda iyo madaxweynuhu inay maanta na gaarsiiyaan heerkan maanta inaan arrintan ka wada hadalno oo qaar kana dhahaan ha loo kaadiyo
qaarkana ay dhahaan war aynu hawsha dhammaystiroo muran aanu galno waxaana geliyey hogaankanaga geliyey waxay ahayd waqtigay ku habbooneed inay ka hadlaan waxay ahayd waqtigay ku habbooneed inay mataqaanaa diplomatic journalist ay adeegsadaan waxay ahayd waqtigay ku habbooneed inay hor istaagaan oo aan arrintan la soo gaarin in maanta qaaibo ka mid ah xildhibaanadu ay leeyihiin war arrinta bal aan ka fiirsanno oo aan garanayna aan ka fiirsanno waxa ka hooseeya iyo journalistka habeenkii socda waxyaabaha habeenkii socda waxaan xusuusay kolkaan hadda hadalka ragga qaarkii dhagaysanayay habeenkii aynu ka hadlaynay arrintii qalbi dhagaxaynu nidhi ay rag dhaheen dib ha loo dhigo habeenkii oo dhanna teleefoonaha socday shalayto oo maxaan ku idhaahdaa golaha maxaan ku idhaahdaa guddiga maxaan ku idhaahdaa joogtadu go'aan soo gaadhayna subaxdii aynu bedelay mowduucii tii baan hadda xusuustay waa nasiib darro inaynu maanta ka hadlayno iyadoo dalal shisheeyu ay faragelinayaan Soomaaliya inaan maanta ka hadlayno bal aynu mataqaanaa tala sugno xukuumadda way cadeysay waxay sheegi lahayd ra'iisul wasaaruhu wuu cadeeyay wasiirka boortiguna wuu cadeeyay dekada waxaan ma ogolin bay dhaheen mana ogin bay dhaheen waxa kale ka sii raadinaynaa maxay tahay sida aad daawateen kala aragtay diiwaanashahooda ayaa ugu dambeyntii waxa la gaaray waqti dambe oo loo qorsheeyay in khudbadaha xildhibaanada isqoray ee aqalka sare ay sii socdaan laakiin markii ugu dambeysay ay hartay ilaa 10 sanatar waqtigana uu gaaray 3 galabnimo ayaa go'aan waxa lagu gaaray in la sii wado ama inaan la sii wadin in loo codeeyo waxaana ugu dambeyntii gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka uu sheegay in maalinta berita dib la isugu soo laaban doono la dhageysan doono khudbadaha haray kadibna go'aan cad laga qaadan doono arrintan buuq badan ayaana goobta ka dhashay maxamed ciise maxamuud Somali Cable TV xarunta aqalka sare